أنا أقول هذا مقع إسبيتال الحياة شغاليسة وحيي بنان في هذا اللوري هو اللي كورس وصارتنا إن بنياشي كوي برني يا كهرلي وحيي بنان أنا بنان مهد وشيليو مركا أوريس مهد بنان وعاد وين إن UNFP وليه كسرته أو أباك ممكن مارتي إن أبا بولي كشقية سيدي تبارك يقول كلها أنت أنا شوقي وتبارك أوريس يا أول سنة مارتي وقطع بورا ما يحياة هسبتال وحي coordination لسميني يعني أو كلمة واحد nursing and midwifery association والnational level ثم حتى لو جينا وعندنا عادة ومساتين نكسو يهيدا تبارك أوري وأنت أنا شوقي at least وقت سبتال الحياة I hope إنه نقول كي قدام بي أو مارتي تبارك راسي مارتي مسكحة كويسين سيدي اللي هو قبل الحياة هسبتال waxaan mahad u jeedinayaa oo kale supervisorski ku dadaalay habeenay dheer soo jeeday maanta ka shaqeeyay inuu hirgalo maanta tabarkaas waxaan kaloo mahad u celinayaa barayaashii participants ayaguna maanta muujiyay karti iyo dadaal iyo adkaysi intii uu tabar socdo bil waxaan filayaa tababarka maanta la qaato waa sidoo BBC noo sheegay maaha maantay in meeshii laga tago ujeeddada ugu weyn maanta objectiveki waxa weeyaan qofkii tababarka qaatay tababarkii uu qaatay sidii ugu faa'iideeyo dadka ugu shaqaynayo ee fiilka community marka waxaa laba qiimeyn baa la sameeyaa marka tababarka la dhameeyo laba qiimeedoo muhiima jira mid waxa weeyaan performance evaluation waxa la yidhaahdo in maaragtay qofkii tababarka qaatay siduu u perform karay siduu u shaqo hawshii loo tababaray uu qaadanay uu fulini maaragtay inuu kalsooni ku fulinayo inuu caqabada jiraan performancekiisa checklist baa jira sida lagu qiimeeyo marka waxaan filayaa in la qiimeyn doono ta labaad waxa weeyaan the impact waa la yidhaahdo maaragtay evaluation oo isna bal sida adigu ugu faa'iidaysay dadkii aad u shaqaynaysa community taana waxay u baahan tahay iyadana maaragtay qolada tababarka maaragtay samaynaysaa hay-adda samaynaysaa inay labada arrinba ka daba yimaadiin faraha lagu sameeyo sidii maaragtay u hubiyaan wixii ay bareen inay ku camal falayaan iyo inuu community ugu faa'iidayo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka hore hay'adda UNFP الليلة كان صوته صرت جلسي إن هالكن هاي أخاطير ثاني كبرتهم هو بار انتنسيف هو متبلع وحضرنا ما هذا مقيمها الحياة هوسبيتال هي مراح ديسة وهي قلنا مرتجلين أو شل نقبتها وحضرنا هذا يبيش بيجرو أو شو أسوق بجودي وإحنا في الأيام أنتي وحكي فايديستي بخطيتها وجديد وهاي إن أي هاي برتان والرغضان أو عبرتها هاي وفايديان تتكلم فراغ بدل لين ملاها تتبادل. On behalf of UNFPA, United Nations Population Fund, I want to appreciate and thank Al Hayat Hospital for hosting this wonderful training. I want to also thank Amoud University supervisors, the first batch who graduated from family physician from Amoud University. I want to thank you participants for joining this training. I don't want to add much, everything have been said, but thank you very much, keep learning, and I want you to remember we are one of the most high mortality rate in the world. Remember, when you gain the skills that you need to save mothers dying in the middle of Sanag or Aragab or Las Anod or wherever. Keep learning, keep saving lives. Thank you. Participants and everyone who's come from Hargeisa and those from town. I just wanted to really give a small word of encouragement to the participants, the young doctors. So you're all finished with your
training, both internship-wise and CMONC training-wise. And I was thinking of at least 3 things that really make a good doctor. So first is the easiest, that's the knowledge. And you guys spent 6 years in medical school after a freshman year of university, gaining knowledge. That's mostly what you did. And this training also gave you some knowledge. You had some teaching sessions and some lectures and some training sessions. The knowledge is really the easiest part of being a doctor. And you've put effort and time and you have knowledge, that's for sure. But then you have to learn how to apply that knowledge, and that's where skills come in. And that requires practice. It requires, in medicine, supervised practice, so that you're not practicing on your own without someone keeping you safe, right? And that's something else that this program has tried to do, at least for the short time that you're in the program, is to give you a chance to practice your knowledge and develop your skills. And we hope that you have had some chance to do that. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة عافماتك UNFPA مدحة جامعة مدحة أستاذك الحياة والسمو هريو هي هيدا صمدف أدنى السلام يا سلام عليكم الدنيا. أنت كذب كلي واحد كسوج هني برنامج لو تبغى خطيرته جونيورك لو تحرق tababarkaasi inuu ahaado tababar xirfad dheeraad oo lagu tababarayo badbaadinta hooyada iyo ilmaha taas oo wax badan ay ka qaban doonaan insha Allah taala kulay programku wuxuu socday hal bil halka bil waxay joogayeen isbitaalada waxay ka shaqeynayeen isbitaalada intii ku horeeyay toddobaadkii ugu horeeyay waxay qaadeen 10 marka isbitaalada ay joogayeen wax badan bay ka qabanayeen lagu tababarayay waxa lagu tababarayay si uu badbaadin lahaayeen hooyada waxa lagu tababarayay ilmuhu marka uu dhasho hadii uu caqabado kulmo sidii uu badbaadin lahaayeen haddaan wax yar ka taataabto training-ka oo socday muddo bil ah oo ku qaadanaynay magaalada Boorama ama isku jirnay dhaqaatiir ka timiday gobolada Sanaag iyo gobolka Awdal runtii wuxuu ahaa training aad u qaaliya waxyaabo badan oo ka faa'iideysanay oo ku caawin doono ummadeeda taas oo han noqoto gurmadka degdega loo fidinayo hooyada iyo ilmaha dhashay loo fidinayo oo muddo bil ah lagu tareengelinayo sida ummadeeda wax ku qaban lahayn runtii waxaan mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay in hawshaasi hirgasho maanta runtii aad baan faraxsanahay aniga dhammaan dhaqaatiirta kale ee hawsha halkan maanta ee loogu soo xiri doono wuxuu ahaa training aad u qaaliya intii uu socday waxa isugu jira waxyaabaha aan qaban jirnay inaan la siiyo lectural aan qaadan jirnay aroortii aan ku qaadan jirnay isbitaalka Alxayaat iyo galabtii iyo habeenkii oo aan ka geli jirnay habeenkii dhaqaatiirta isbitaalada Boorama Regional Hospital iyo Alaal Hospital iyagoo ay nagu mar walbana garab taagnaayeen supervisoradayada iyo iyaguna wixii aan qabay oo dhan la eegi jiray anagoo ah hay'adda UNFPA maanta waxaan keenay dawooyin family planning ah ama ciyaalka korinta ah waxaan ku wareejinay dhakhtarka Alxayaat iyo isbitaalka Umma Shaabuud University waxaan cadeynayaa in daawooyin ku saabsan kala dheeraynta carruurta waxaan la yidhaha bear spacing aan kala wareegay hay'adda UNFPA oo lagu deeqday isbitaalka qaybta MCH-da laga shaqeeyo waxaan mahad ballaaran u jeeday hay'adda qalabka ay nagu soo wareejisay inkastoo qalabkii u horreeyay yahay waxaan ka rajeynayaa in meesha ugu dambeeyo salaamu calaykum